وهجاج آدي يوم هتسي هاي فرحان ودوانا كلاسو كلمي مقالة قولتشيد وكترسان قبل كأوضل هدي داود مغلي شرتي داد صومالي دو أي لهذا وراب الهذل دوانا يا وراب الهذل كلفتي سيكو صاركي مقالة بلي قبل أو مقالة مدح ذا قبل كهود نكاسي والله يلاحظو حسن نور أمره ما هو كلي وراب الهذل sida la ii sheegay isaga qudhiisuna uu iga waramay waxa uu aad ugu xeel dheer yahay dawad dhaqameedka iyo waliba xidigiska sheekadina dhaxmartayna sidan ayay u dhacday gacago saddexan igu bilow waxa magacayga la xasan nuur amare waxaana ku magac dheeray xasan jifil xasan waxa la ii sheegay in dadkii xoolaha baad dabiibto oo waliba khaasatan dhinaca kabista aad iyo aad ugu xeel dheer tahay hawshaas sideed u gashay markii ugu horeysay markii ugu horeysay waxaan ahaa professor xaggan qoraal ku ah dhirta iyo qaabkan hidda dhaqameedka ah ee la qoro qoraalka marka fikirka waxaan ka helay oo aan ugu horeeyay hal baan kabay hashaana khashaafad dhudhunkii oo kala ah baan adinka dulgeliyay isla markiibana way ku socon bagaadhay marka xiraan u yar ooday dabadeed kadib geeli muddo dheer oo qiyaastii la dhowr ilaa 5 sanadood ayaan dhaqanka guud waxaan aad u kabi jiray oo nagu shaqayn jiray geela ilaa ma waqtigii uu nagu dhacay dagaalkii ugu dambeeyay gudaha ka dhacay aidkiina arrinteedu waxay aad ugu soo fiday xagga dadka markaa imka deegaankan aynu joogno iyo deegaanka wadada cad ee Salaxley iyo deegaanka wada Bariis inta ka dhaxle ayadoo amba aan buko amba aan safariyo baxmoyana waxa ka jaba xagga dadka aniga kaba geeluna dawaneef xoolaha isagu dadka oo la qiimo maaha marka imka mucaarad baa ku hawsaako ugu dambeysay nimad waxay iga soo qaadeen balaak saakada ugu dambeysay qaalin jabay oo daanka ka jabay anigoo qaab yaro ku sameeynayo inaan ku dhajiyo qori yar iyo loox yar iyo xabag isugu sameeyo qaalinka suudaanka ku daaqo ayaa arrintiina ugu soo gaadhay oo aan leeyahay war waxan ma aha deemka arinku ma aha kii dadka kii geeli iga daay walaalayaal jabninka lafaha aad kabta mooyaane waxa la ii sheego kale in lafaha madaxo kale dadka dhaawacyadu ay ka gaadhaan inaad gurto taaseed u samaysaa waan guraa waxaan ku sameeyaa oo kale oo waliba aan aad u sii dawad dhaqameed qaabkan dhirta oo kale ee waxa jirta qaar madaxa faash kaga dhacay amba ilaa xagga kale ka dilaacay hadii kulka aan la soo gaadho dhirta isla markiibana inuu qofkaasi qaar kaba mida ay magaalada iyagoo dhacsan markii aan sida mariyay markiiba qayl tageen dhir laftan soo celinayso soo toosisa qaar kale oo aan ku dhayo iyaguna dawad dhaqameeda xagga madaxa iyo xitaa xagga tolmaha xaggaana aad baan iyadana wadanka waxa dib horta ku nool oo dhan inta dhaqaatiirta oo in Hargeysa ka sokaysa aniga kulkul baabay ma jeesi soo diraanay dhahan kaalayo dadkaniyo soo dhaadhaco xagga ka shaqee marka anuguna dadka waan isaga daneeyaa waxaan idhi warniyo caalamku ma aha tan waa laga tagayaa ummadan aan la noolahay ayuun baan u daneeyaa sida way tii gurida iyo kabniinkii gartay dhirta marka aad isticmaasho iyaga maxaad ku kala garataa markii hore sideed ku ogaatay waxaan ku ogaaday aniga oo yaro mayd iyo xiis iyo joogi jireenin aad dhirtan iyo waxaan ugu shaqayn jiray Allah u naxariiste adeerkay ahaa ninkan waxyaabahan ma aha wax baratisa ma aha qaybahan markaan waa ku shaqeeyo marka tii qiyaasto waxaad moodaysaa qaar koodina karaama ku jirto sababtaas ay ku wadankan aan ku nool lahaa oo dhan waxa laga yaqaan Sheekh Alfa waayo ninkaasi ayay markii aan yaraa wixii tusi jiray dhiraha qaar kamida qaar qoladan xagga imka junuudaha jinka kale loo isticmaalo qaar loo isticmaalo xagga lafaha qaar loo isticmaalo nabaradan ay dhaqaatiirtu markiiba kula cararaan dadka ay yiraahdaan waa kansal qaar loo isticmaalo ilkaha cunitaankooda cunaha iyo xoqada kale qaar loo isticmaalo waxaas markaa ay bari jiray waxaanu yoorin jiray insha Allah markada 40 gaadhabaad ku shaqeyn xagga dhirtan ilaa maana 40 gaadhaba ma bilaabinba marka dhirtaad isticmaasho tusaale ahaan kuweba kamida waxa kamida kuwa lafaha kuwa dhiig joojinta
kuwo geela loo isticmaalayo kuwa dadka loo isticmaalayo mid walba way leeyihiin marka waxa hadaba cajiib le geedkan madaxa la saaro ayaa nin anigu biyadhaamiskii gaari booyada wata ayuu nin igu yiri niyo gaarigan ka soo dego markaas aan ku dadkii xubeliyaan gaarigan la gaaraya warba ka soo dego aan dakhranay geedkii soo saar gacanta qabto waxaan ku geedka waa kana la baxniyo sidaa yeel dabadna arigaaga neefka gowrac ku dar inaan kaaga madaxa iga saardhe dabadna isla markii aan biyo shubayo sidii yeelay bartan bankay ahaydoo ninkii waxa la yiri koomu ku jira isla kolkiiba markaasaan ku yiri geedka hayga daadin anaga la noo sakhreeyo dabadna waan ku noqday ninkii oo koomi ku jira ayaan ku yiri war ka sii maydh markii laga maydho isagoo indha kala qaaday ayaan sidaa u mariyay intan gaariga kaga dul tagayo kulka suudina ka radbaad gumburuq qayl tagtide dabadeedna waa geed maxaa la yidhaha geedka magaciisa markaa geedka waxa weeyaan geedde dadka in loo wada sheego dhirta maaha sababtaasoo ah haddii marka dadka dhirta loo wada sheego waxaan oo isfasaqaya laakiin si gaar ah Cabdisalaam kugu sheegay dalka dhigo inta kala ma bixin laakiin dad far badan waxay tilmaamaan in aqoontii dhirta loo lahaa iyo dadkii yaqaanay ay si yaraanayaan oo haddaan la isu gudbinin de markaa in aqoontaasi oo dhamme ay lumayso adigu taa ma qabtid miya maya waxaan anigu aad ugu wanaagsanahay intanoo kale imka hadday raacdo dhirta kama qarsado dadka qaar baa markay dhirta la soo baxayaan dhinac u bayra dadka waan ka dhex guraa laakiin dadka waxaan ku yidhahaa aniga waxa igu lifaaqan bal sidaasi dhirtan dadka ku sacaynaya waa kuwane bal idinku qaada marka dadku waxay soo tijaabiyeen inay karaamo ku jirto oo noloshan imaka intan anigu aan noolahay kale ay ku karaamaysan tahay dhirtanu marka waanay tijaabiyeenoo iyagu caafimaadkii way ka waayeen iyo sancadii ay ka doonayeen waxaa kaloo la ii sheegay in aad wax badan ka taqaano cilmigan dee hawada sare ama xidigiska bal hadda taasna wax nooga taabo waxaa weeyaan nin kastoo is yidhahaa waxbaa taqaanaana inay ka horeeyaan dadka aqoon badan taas waa ta cilmiyan ee xadiisiga ah laakiin anigu imaka waddankan dhan aan ku noolahay nin la yidhaaho Cabdilaahi Gaafuun oo galbeedka jira bariga yaalo wadada waaxle leeyahay dhulka jooga iyo oday iska indhabeelooyna dhagjar leeyahay marka xagga inaga xiga saddexdayadaan nin oo aniguna markii aan dhashay odaygaas wili